كودا بيشا جولاي وكوبيغان مانتا وحاسي رسمي الصوماليلاند uga furmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo waliba dugsiyada hoose dhexe waxaana imtixaankaasi dhammaan uu ka bilaabmay guud ahaan Soomaaliland waxa faahfaahin ka bixiyay saaka gudoomiyaha guddiga imtixaanaadka qaranka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda iyo waliba wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaana dhammaan sheegeen imtixaankaasi inuu si rasmi ah u bilaabmay sidoo kale mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddu waxay tilmaameen isla markaasina ay faahfaahin ka bixiyeen astaamaha iyo waliba sababaha iyo sidoo kale xeerar la sheegay in laga soo saaray imtixaanka adkeyntiisa waxay digniimo culus u direen ardayda ka qayb galaysa imtixaanka iyo waalidiintooda intaasi oo faahfaahinaya ayaa waxay yiraahdeen looga fadhiistay imtixaankii shahaadiga fasalada afraad iyo sideedaad awna bilaabmayo saacada imika aynu wadno ay ka bilaabmay meel walba sideedii uu furmayay waxaan kaloo jecelahay runtii ugu bishaareeyay ummadda reer Soomaaliland ilaa hadda saacada inaan wax dhibaato ah meel laga soo sheegay jirin imtixaankuna uu meel walba gaaray saakana uu ka wada bilaabmay waxaan jecelahay in inta badan warbixinta iyo ku dhawaaqida waxaan u deenayaa wasiirka wasaaradda iyo dugsiyada sare fasalka afraad oo uu fariisteen tiro guud ahaan dhan 6,558 arday oo kala baxa 16,500 oo arday oo dugsiyada sideedaadka iyo 10,058 arday oo dugsiga sare ah 524 goobood baa lagu geliyay imtixaanka oo 120 goobood dugsiyada sare yihiin 103 gooboodna ay yihiin 403 gooboodna ay yihiin dugsiyada sare dugsiyada dhexe afwan dugsiyada dhexe waxa weeye 403 goobood dugsiyada sarena waa 120 goobood goobaha lagu gelaya fasal kasta waxa ilaalinaya laba macallin kolka laga reebo dugsiyada dhexe oo mid ah waxa jira ninkii korjoogaha ah kormeer guud baa isna jira askartii baa jirta oo meelaha qaarkood ay ka badan tahay 2 askari inta badanse waa 2 askari ilaa 3 ayaa ilaalinaya guud ahaan tirada ka howlgalaysa ee shaqaaluhu marka ma ciidan la isku daro kama yara dhowr kun kama yara 3 ilaa 4 kun gaadiid tiro badanina oo qaybgalaya goob kasta gaadiid baa jooga goob kasta imtixaan lagu qaadayo hal baabuur baa jooga oo heegan ku ah amba imtixaanka ha geeyo amba ha soo celiyo amba xaalad degdeg ah timaado ardayda ha magaalada ha u gargaareen waa maxamed cali xaashi telefishinka Space Channel magaalada Hargeysa